mahadnaqaynaa ka soo qayb gasheen qadadan maamuuska ee aanu samaynay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa waxaan idinkaga mahadnaqaynaa si wanaagsan ee aad u soo dhaweyseen ee aan noola soo dhaweyseen madaxweynaha iyana aad baan idinkaga mahadnaqaynaa saacad adag baynu joognaa rag badanna waxaa laga yaabaa in bahalkii ina yar hayn jiray uu hayo marka si aynu u kala tagno waxa aan doonaya inaan ku soo dhaweeyo brofesorkii martiqaadkan lahaa brofesor Salebaan ku soo dhawow Salebaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee la soo sharafay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuuno isaga iyo madaxweynuhu iyo xukuumadda Somaliland ay si fiican oo sharaf leh borotokoolkoodii noogu fuliyeen madaxweynayaal waxa inoo haray waqti kooban oo kulley berrina waa haysanaa hadal badan kama bannaana waxaanu idinka mahad celinaynaa sida aad noo soo sharifteen adiga oo madaxweyne Mustafa sheegi awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadweynaha geeska Afrika ku nool gaar ahaan kuwa wada dhashay xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi uuna waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waan idinka mahad celinaynaa وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوناها دولة ديغانك الصومالية إثيوبيا مدن مصطفى يا مدحنا كحينك جمهورية الصومالي الآن عبد الرحمن سيرعي مدنياش وزير هذا لبدا دولة دود مدحنا كلام دمانها كان فرداء الصلاة دي عقاشة بروفيسور سليمان أحمد جوليد أو مرتقات كلاهارنتي هي دمان مرتشات كلاك سوق كشيء مناسبة وحيدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب وحرمتي شرف وين نوعه إن أنا هل كان أشوف نص ودوين تأيي قابلات وقتي قبل عدن وهم جامين اليوم مدحونها دولة ديجان كالصومالية إثيوبيا هي دمان حبناها وقتي جيسك كوبان يقولها وزير هذا لا مدحنا كلا إلا سعته له رنانتي مدحوين كسر دو سوماليلاند سجود سيجار واحد كسر دو تام مقالة بورما أو مقالة ديني لبعض دت كريب بورما يقول كان أول سجود ده كل الكيد ديجان كدت هذا وحدهم ويرنتي دت أنت هالك شوفتي أنت هالك شوفتي اسمه مديهينه فرق بدنه ودحية يعني تشرين marka mar labaad ku soo dhawow dalkaaga iyo deegaankaaga uu ku soo dhawaan kulanahay madaxweyne runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa odayaasha iyo dhammaan bulshooyinka reer awdal ee sida qiimaha iyo milgaha leh maanta waqti fara badan runtii u muray in ay madaxda soo dhaweeyaan oo ay madaxweynaha qaabilaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin runtii madaxweyne ku soo dhawow magaalada runtii iyo jaamacadda Camuud oo jaamacad dad badan abaal kula runtii oo geeskaas si guud ilaa kililka waayo anigu waxaan kamid ahay ardayda iyo midhihii jaamacadda ka soo baxay oo professorku wuxuu dhigay baan kamid ahay rag badan oo kale oo halkan joogaana waa kamid haddaan jigjiga tagno waxaan helaynaa in badan oo ka soo baxday iyaga laftarkooda ayaynu helaynaa runtii marka waa jaamacad facaale oo saamaynta leh marka runtii ku soo dhawow oo inay waxaan ku faraxsanahay macallinkayga iyo professor Salebaan inuu martiqaadka ku fidiyo oo uu ku soo dhaweeyo jaamacadda oo ugu maamuuso runtii wax aad iyo aad u magaranaysaa loo magaranaysaa maamuuso oo aad iyo aad loo tilmaamana way tahay maalinta ilaa caawna kulli waynu wada joognaa marka gacmo furan ku soo dhawow waxaan isagana kulli laba eray doonaya inaan siiyo wasiirka labaad ee Soomaaliland kala socday abtigaya oo igara fadhiyo wasiir Cabdiweli madaxweynaha xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo wafdiga qaaliga la socda madaxda kale ee dowladda Soomaaliland ugu horeeyo barasaabka iyo maayarka degmada Boorama mudanta iyo marsharafta reer Boorama dhamaantiin waa salaamantiin waxaan maanta halkan joognay inuu soo dhaweeyno wafdiga balaaran ee dowladda deegaanka inuu yimid oo runaantii dal iyo ummad uu inaga dhaxeeyo xidhiidh aad iyo aad u qoto dheer
horena u jiray mustaqbalkana jiri doona intii madaxweyne Mustafa yimidna aad iyo aad u sii xoogeystay isagii xukuumaddiisuna ay wax badan ka qabteen madaxweyne soo dhawaan ku leenahay dalkaagii labaad sidaa la sheegay waxa isna aad u mahadsan Professor Saleebaan oo runtii xiriirkii siyaasadeed intuu dhaafay xiriir aqooneed maanta halkan aynu joogno kolley isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jaamacadda Ahmed oo ahayd jaamacaddii ugu horeysay ee dalka laga hirgeliyo midho fara badanna soo saartay oo runtii aynu maanta ka arkayna iyagana waynu bogaadinaynaa si guudna raawdal waa dad lagu yaqaan soo dhaweynta iyo maaragtay marsharafta marka madaxweyne adiga waftigaagu waa dawdihiin oo gobolkiinii waa dadkiinii ku soo dhawaad bad mahadsantii waxaan marka ugu horeysa mahad weyn u soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca dawladda deegaanka Soomaalida iyo magaca madaxweynaha sidii sharafta lahayd ee quruxda badnayd ee aad noo soo dhaweyseen laga soo bilaabo madaxweyne ku-xigeenka oo nagu sugayay oo noo taagnaa maaragtay kala baydhka laga soo bilaabo xukuumaddii maaragtay noo istaagtay nagu qaabishay waxa weeyaan xadka ilaa halkan oo odayaashii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo dhammaan dadkii oo dhani maaragtay ay maaragtay si qurux badan oo heelan oo walaaltinimo ku dhaxsan tahay maaragtay walaaltinimo ku dheehan tahay ay maaragtay noo qaabileen waxaan leeyahay maaragtay aad baad ugu mahadsantihiin waa abaal wanaagsan dadka reer Boorama waan ugu mahad celinaa guud ahaan dadweynaha Soomaaliland gaar ahaan dadka maaragtay gobolkan Awdal amaba waxa weeyaan magaaladan Boorama soo dhaweynta waan idinka aqbalay madaxweynaha laga bilaabo ilaa xukuumaddii dhamaantay waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxa intaas dheer sida aad la socotaan Soomaaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalidu xuduud dheer baynu leenahay taariikh soo jireen ah baynu leenahay walaaltinimo isku xidhnaansho iyo isku dhafnaansho baa inaga dhaxeeya dad aan sinaba u kala maarmayn sinana u kala tegayn kala maqnayn baynu nahay xidhiidhadii faraha badnaa ee dhaqaalaha ee ahaa mataqaanaa amniga ahaa saadad socotaan xagga amniga oo kale waxa jira guddiyo isku dhaf ah oo labada dhinacba saddexdii bilood iyo bilihii oo dhan bay isu yimaado oo arrimaha amniga ka wada shaqeeya waa sababta aanu nabadgelyada ugu naaloonno idinka iyo annakuba waxa weeyaan guddiyada xagga dhaqaalaha baa jira oo berbera koridorkii waa kan bilaamaya jidkii waa kan socda dadku way isu soo gooshaan nabadgelyo lagu socdaa xidhiidhadaas oo dhan way naga dhaxeeyeen xidhiidhka aqoonta iyo waxbarashaduna sida aad la socotaan deegaanka dhalinyarta wax ku baratay markii waddanka Soomaaliya uu burburay ama waddanka guud ahaan burburay oo kale dadka ugu faraha badan ee aqoonta Soomaaliland kor u soo kiciyay waxa weeyaan dhalinyartii deegaanka wax ku baratay oo badankoodu jaamacadaha Soomaaliland aad wax uga dhiga sida aad la socotaan jaamacadaha Soomaaliland ama Unity ha noqoto ama Admas ha noqoto ama ha noqoto ma aqoontana waan isweydaarsanaa jaamacado fara badan oo Ethiopia leedahay laakiin dhalinyarta aqoonyahanka deegaankan u dhashay ay xad iyagoo ah oo bridge ah ay keeneen oo ay soo galiyeen Soomaaliland oo ay aqoonteedii wax badan ka bedeleen oo ku kobciyeen baa jirta marka kollaba ama dhan dhaqaalaha ha noqoto ama dhan nabadgelyo ha noqoto ama dhan maamul ha noqoto ama dhan aqooneed ha noqoto dad aan kala maarmayn oo si kastaba isugu xidhan baynu nahay kollaba midba midka kale uu ka warhayo oo hadduu mid meel bukooto ka kalena uu maaragtay la bukooto haddana waxaan u mahad celinaynaa professorka casuumadan bixiyay ee qada sharaftan sameeyay ee madaxweynaha soo casuumay ee aananagu maanta yeeritaankiisii iyo aanu ku nimid meesha yaan mahadnaq maaragtay u soo sheegaynaa xidhiidhkan aqooneed ee uu professorku hadda maaragtay yagleelayo uu isagana maaragtay berri socdaalkayga daaran yahayna waxaan filaynaa inuu midho badan dhali doono aniga Boorama hadda ay ugu horeysa dadka kale way ararkeen waa magaalo maaragtay aad u weyn oo qurux badan oo intaan filayay in ka badan ah oo buurale marka waa magaalo dadkeeduna sidii aan filayay si ka qurux badan taana waa maaragtay oo aad u population badan weeyaan